Soomaali soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan wax idinka baro ama idin sharxo inagoo dhakhtar dhageysanayna cudurka tiibjada oo inaga inagu badan si aad uga faa'iideysatid. Laakiin waa inaad falow isoo dhahdaa cudurro badan baan soo ka hadli doonaa. Waa cudur jiro dhan baan insha Allah ka hadli doonaa. Anoo ku bilaabaya kuwa inagu badan marka isoo raac si aad u aqoon u yeeshid. In this video, I'd like to discuss about something. No Many patients who suffer with tuberculosis, they are coughing and they are losing weight. Miisaanka hoos u Despite dhaca. eating a normal diet. In addition to this, because there is inflammation in the lung, there may be a sensation of having low-grade fever. So you might have Qandho xoogay yar baa ku haysa. you might wake up with night sweats. So that's Habeenkii baad indication that there's dhididaysaa. inflammation going on. So these are symptoms that is important to try to keep in mind. And Calaamadaha uu ku sheegay waxa weeye in aad qufacaysid waliba qufacaan muddo kugu soo hayay dhowr bilood ku hayay uu yahay in miisaankaagu hoos u dhacayo qufacaaga xataa dhiig baa soo raaci kara habeenkiina waad dhididaysaa waxaa ku haya qandho yar baa ku haysa don't know why you're losing weight. adoo cunadii cunaaya baa miisaankaaga hoos u dhacaya ma garanaysa sababta aad maaragtay hoos ugu dhacaysa dhakhtarada This is also part of the complexities of tuberculosis is the fact that tuberculosis is one of these infections that's really, really strange because you can start off with a TB infection and that infection may not turn into a disease straight away. So this is something that's very hard to understand and even healthcare professionals sometimes miss this point because you can get infected, you can inhale the Koch bacillum, the bacterium that causes tuberculosis, and it may linger in your lungs for years. wuxuu hadda ku yiri waa ku sugaayeen inta cudurka aad ku neefsatid bay sanbabkaaga sanado ku jiraysaa deerta muddo dheer ku jiraysaa They have a sort of a little war going on. So you have the infection that's maybe at a very low level in the lungs, and you have the immune system that manages to keep it there. So it يعني doesn't tii really difaaca jirkaaga meesha ku turn into haynaya a full-blown infection. anaa waxa way We call jirro this dareemi latent maysidaad waana kugu TB jidhaatay infection. And this latent infection gives you absolutely no symptoms. You will never know that you have it. adoo cudurka qaaqabaadan ba Cannot ogeynba give it to anyone laakiin else gadaal bay u because imaan it's so kartaa small. yiri yani waxa weeyaan adoo cudurka qaba dad baa qaban isku ogeyn sababta ku tahay jirka difaaciisa ka celinaya laakiin hadhow marka difaaca jirkaaga uu yaraado bay soo baxaysaa